gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame iyo sidoo kale murashaxa madaxtinimo ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo halkan warbaahinta kula hadlay ayaa waxa ay soo bandhigeen qaabka loo maray iyo sida looga wada hadlay tabashooyinka xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu ka qabay arrimaha codbixinta iyo tirinteedaba waxaana gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ugu horreyn saxaafadda la hadlay uu sheegay in dhammaanba ay ka heshiyeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo murashaxoodaba dhammaan arrimihii tabashada ay ka taagnaayeen hadda kadibna dib loo bilaabi doono wada shaqayntii iyo tirintii gobolka Maroodijeex waxaan maanta iclaaminaynaa gudoomiye Cabdiraxmaan musharaxa xisbiga wadani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday 2 maalmood waxaanu u wargelinaynaa shacabweynaha u sheegaynaa inuu nagu soo dhamaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afkaranay qodobadii aanu ka wada hadlaynay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo leh jecel badan ka leh qarankan turaalana u sameeyay qarankan inaynu ku wada ixtiraamno meeqaamku taagan yahay dhanka kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinku waxa uu soo hadal qaaday buuggii codbixinta ee dhawaan ay soo bandhigeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee ay sheegeen inuu ahaa mid been abuur ah ha yeeshee gudoomiyuhu waxa uu sheegay buuggaasi inuu yahay kuwii lagu codbixinayay ee saxda ahaa ee guddiga doorashooyinka ay soo daabaceen waxaana uu soo hadal qaaday buuggaasi inuu ka soo baxay goob ku taalla gobolka Saaxil waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya buuggii degmada Berbera ee ahaa codaynta buuggii codaynta waanu ka shaafinay waanaanu isla qaadanay waanaanu ka heshiinay waanaanu u sharaxnay waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodijeex khaas ahaan degmada Gabiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan taana waanu isla qaadanay shaqadiina way noo soconaysaa sidaas aanu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa waanad mahadsantihiin dhanka kale murashaxa madaxtinimada xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa isna waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku saabsan arrinta ay ka wada hadleen guddiga doorashooyinka iyo qaabka loo xaliyay tabashada xisbiga waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya komishanka waa wada hadlaynay labadii cisho soo socday waxaanu mahadnaqaynaa runtii dulqaadkay muujiyeen waxaanu isla garanay oo ku soo gunaanadnay in la dhegaysto dalabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka Maroodijeex degmooyinka Gabiley iyo degmada Hargeysaba dalab kaya ku saabsan gobolada kalena in qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha Allah jawaabna aanu ka sugi doono komishanka haddii Ilaahay ka dhigo waxaan isla garanay inaan soo celino si loo sii wado tirada guud ee gobolka Maroodijeex labada degmada Gabiley iyo degmada Hargeysaba waxaan kaloo dadka ka warqabtaan arrinta ku saabsan buugga waa buug soo galay gacanta xisbiga shacbigana soo bandhignay commission maalintii hore jawaabta bixiyeen waa ogeydeen laakiin waxay caddeeyeen in buuggaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay lahaayeen ay ugu talagaleen doorashada waxaan u mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa uun dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii
commissionku ay qiraan inay tixgelinayaan hadday tahay nolol jeex iyo hadday tahay guud ahaanba dalka waanu mahadnaqaynaa taageerasheeda waxaanu sidaasaan ku wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga haddii ilaahay ka dhigo taa hargeysana waa la bilaabayaa kuwa kalena jawaabtii iyo tixgelintii baanu ka sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan commissionka haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad loo mahadsantiy